Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal waa Boolmoog Media aad uga barateen halkan inuu ka soo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida kooda ugu xiisaawi. Waa maalinimo Khamiisa 11 bishii 6 sanada 2020. Waxaan warkeena ku bilaabaynaa aqalka sare ee looga caramiyo dalkaasi Itoobiya ayaa markii ugu horeysay waxaa loo doortay nin ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida. xilkan oo iska cashishay haweeneyda lagu magacaabay Khayriya Ibrahim ayaa waxaa baarlamaanka aqalka sare ee dalka federaalka Itoobiya waxa uu aqlabiyada ku ansixiyay oo ugu doortay inuu noqdo gudoomiyaha aqalka sare ee federaalka Itoobiya. Aadan Faarax Ibrahim oo ahaa siyaasi horey caan uga ahaa gudaha dalka Itoobiya isagoo haddana ahaa madaxweynaha ku-xigeenka ismaamulka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Haddaba Aadan Faarax Ibrahim ayaa waxa uu ku dhashay isla gudaha Itoobiya isagoo waxbarashadiisa sare iyo hoose intaba ku qaatay, waxaana lagu xasuustaa doorarkii siyaasadeed ee uu ka ciyaaray markii uu ahaa maayarka ismaamul goboleedka Diridhabe oo uu waqti badan soo ahaa. Waxaa xilkii gudoomiye ku-xigeenkii iska casilay Maxamed Rashiid Xaaji oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi, maadaama aan laba qof oo kasoo wada jeeda hal deegaan aanay wada noqon karin gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa sida uu qabo sharciga u yaala amaba dastuurka dalkaasi Itoobiya. Waa markii ugu horeysay oo nin ka soo jeeda qowmiyadda Soomaalida uu ka noqdo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Itoobiya. Waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal haddaba dalka Liibiya, iyadoo toddobaadkii hore ay ciidamada GNA ee dowladda la aqoonsan yahay dalkaasi Liibiya ee gacanta ku dhigtay magaalada Tarhuna ayaa waxaa la soo sheegayaa in maalinimadii shalay ahayd laga helay halkaas xabaal wadareedyo magaalada duleedkeeda, sida uu sheegay mid u hadlay afhayeenna u ahaa ciidamada GNA-ga ee qabsaday magaalada Tarhuna. Ayaa waxa uu sheegay in ay heleen xabaal wadareedyo aad u ballaaran oo duleedka magaalada ah, isaga oo yiri ma garan karno tirada inta ay yihiin, dadka waa ay isku jarjarmeen ayuu yiri hilbahooda si loo kala sooco. Waxaa loo dalbay hay-adaha takhasuska kule iyadoo ay halkaasi gaareen hay-adaha ay ka mid yihiin Bisha Cas iyo MSF. Waxaanu kaloo haddaba idiin haynaa in way isa soo tarayso dagaalada weli lagu sii hayo Generaal Haftar oo gabi ahaanba lagu soo waramayo in boqolkiiba in ka badan 95 lagaga dhigay gacanta gudaha dalkaasi Liibiya. Waxaanu kaloo idiin haynaa haddaba daawadayaal dalka Turkiga oo noqonaya dalkii labaad ee ugu badan ee agab caafimaad iyo qalab u dira dalalka uu saameeyay COVID-19 ayaa waxa uu gargaar aan kala go' lahayn uu u dirayaa dhammaan dunida, gaar ahaan dunida Islaamka, isaga oo maalinimadii shalay ahayd u diray diyaarad isugu jirta dawo iyo qalab dalka Afghanistan. Turkiga ayaa waxa uu isagu xaqiijiyay asbuucii hore inaanu wax kiisas oo cusub oo COVID-19 aanu dalkiisa uga cabsi qabin. Waxa uu kaloo maantay oo Khamiisay 11 bishii 6 uu Turkiga dib u furay garoonkii weynaa ee caalamiga International Airport ee Istanbul, isagoo duulimaadyada halkaasi ka baxa ee ugu horeeya ay noqon doonaan duulimaadyo uu toos ugu tagaan diyaaradda loo yaqaano Turkish Airways magaalada London, iyaga oo la leeyahay safarkan ugu horeeya ee lagu furay garoonka caalamiga Istanbul waxaa ka faa'iideysan doona kumanaan ajnabi ah oo u dhashay dalalka Yurub oo ku xaynimnaa tan iyo intii uu COVID-19 ka dillaacay dunida. Muddo 3 bilood ka badan ayaa dad ajaanib ah oo u kala dhashay dalalka Yurub iyo Ameerika iyo guud ahaan Asia waxa ay ku xanibnaayeen gudaha dalkaasi Turkiga, iyagoo qaybo ka mid ah ay diyaarado khaas ah dowladahoodu u soo direen. Hase ahaatee in ka badan kumanaan kale ayaa waxa ay weli ku sugnaayeen dalka Turkiga. Fursadan ugu horeysa ayaa waxaa la sheegayaa inay dadka u dhashay dalkaasi Britishka ay ka faa'iideysan doonaan. Waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal Malaysia ayaa waxa ay dowladdu ku dhawaaqday maalinimadii shalay ahayd inay joojisay amaba ay baajisay xujayadeedii inay u dirto dalka Sacuudi Carabiya iyadoo u sababeysay xanuunka COVID-19. In ka badan 35,000 oo Malaysiyaana ayaa sanad walba xajka aadi jiray, tanoo uga dhigan in sanadkan sida ay sheegtay dalka Indonesia
iyaduna waxa ay baajisay inaan xajka aan u dirin sanadkan dadkeeda. Malaysia ayaa haddaba waxaa laga soo sheegayaa in ka badan 8,000 oo qof inuu ku dhaco cudurka COVID-19. waa Bowlimoog Media, tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum.